السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وادي السلام أصحاب جنر كان كحرن فالله هدي جنر كان كعصب سكراب نوصر هدي أهرنا جوكتنا لايك تانا بغيرين سودا هذا أصحاب تيدا ما أنت قصة عصب يفيديو عصب قصة نحن لسه وداك تكور سعودي جوكتو قصة أنا وحي كبلا وانا أساسا وحي هذا قصة أنا وحي يكون على لوذا كنت وني يكودي هسا هاتي هدا يعني على استئنا كشيكا يا هذا waxaan ku noolahay dhahdeen waxay dhalatay 4 gabdhood iyo 2 wiilood waxaan ku noolahay dalka Sacuudi Carabiga ah hooyaday aabahay dukaan ayuu Sacuudi ku gadaayay dhahday hooyadayna waxay ku joogto guri joogta ayay ahayd waxay dhahday waxaan dhiga jiray jaamacad ku taal Sacuudi Carabiga walaashayna mid iga yar iyo mid iga weyn waxay dhiga jireen dugsi sare iyo dugsi dhexe inkastoo wiilasha aysan gaarin ee dhahday marka qisadana sida tan ay ku bilaabtay dhahday waxa ahaayay tirgabar akhlaaq iyo usluub ilaahay intaba ku baneystay iyo wanaag aan wareegin ana meel aadin ana gurigeedii iskuulka jaamacadeeda u dhaxeyso waxay dhahday waxa dabeecad gooni ee dhahday hadii aan socdo inaan gadaasheeda aan fiirin oo horteed u socdo waxaan gabdhahan dheeraayay dhahday aniga gabar deganaan ilaahay ku maneystay isluub iyo akhlaaq inta ayaan ahay waxay dhahday aniga waxaan gabdhaha walaalahay dheeraa waxaan daawo jiray Facebook ayaan fiirsan jiray Facebook ayaan fiirin jiraan dadka asxaab iyo waxaan ku lahay waxa dhacday dhahday maalmaha kamid ah inuu wiil dhila soo xiriiray oo Facebook aan iska baranay wiilkii sanado ka badan waa isla sheekaysan jirnay wiil wanaag iyo isku barna ayay ahayd sidaas ay tahay weligay marna waxaan siiyay qalbigayga in nolosheedii wanaagayga inta ayaan siiyay waan la sheeg wanaagii qalkaceel baa isku barna wiilka xumaan iyo waxba maana naga dhaxeenin ay dhahday wiilkii waa isla sheekaysan jirnay inkastoo aan Sacuudi Carabiga isla joognay maana isla kulmin marna igama codsan inuu isla kulno waan isla sheekaysan jirnay waa isla sheekaysan jirnay sheeko xiriir oo nin inaag ka dhaxeeyo waa taqaana ayaa isla sheekaysan jirnay muddo ka bacdi markaa isla sheekaysanay waxa dhacday wiilka jaamacad ayaan bartaa ayuu dhahay wiilka hadii aan kaga dhacay dhahday magaceena inaan sheego ma rabi magaceeda meesna la soo wadaagin gabar abaayada waxay dhahday wiilka jaamacada ayuu ila bartaa anigana ma garanayo asigana way garanayaa waxay dhahday dhowr mar ayuu xiriir ii soo bandhigay iyo jacayl iyo waxaas marna maana ka aqbalin laakiin Facebook wuxuu iskaga soo dhigay qof kale oo wuxuu iskaga soo dhigay dhahday qof aan aqoon u lahayn ayuu iskaga soo dhigay sheeko ka bacdi marka wiilka marka leefa uu arko iskuma fiicneenin laakiin marka fariilis aan naqan wiilkii nooc kale ayaa u naqday sirta oo igu lahaay iyo danta oo iga lahaay waaba intaas soo ma ahan marka aan ma fahansaneyn ayay dhahday maalmaha kamid ah wiligiisi moosa dhihin aan kulano anina waxay ilan qajirto wax la yaab leh anina gabar deganaan iyo akhlaaq iyo usluub ilaahay ku maneystay inkastoo aan ahay maana waxay dhahday waxa tilmaam iyo tusaale ii naqatay inay dadka dhan ay ugu daydaan qof gurigeeda u socoto iyo qof gurigeeda ka soo socoto inaan midna intaas aan u dhaxeeyin aan ahaado waxay dhahday aroortu baa jaamacad u jalmaada waana ka soo jalmaada wax kale iyo masuurto iyo wax galeete ma igu soorto ma igu jiraan oo shakhsi ah waxay dhahday wiil jaamacadeed baa u jarmaada waa ka soo jarmaada waana u jarmaada cidna gurigooda ma tagin aroosna waxaasna baba sheegin markasta oo jaamacada ka imaado waxba gadaasheeda socda ay dhahday wixii ma dareemayo oo ma fahansani gadaasheeda inaa fiiriyo maalmaha kamid ayaa waxay dhahday gabadhii maaha wuxuu igu dhahday inaa kulno ayaa rabaa okay ayaan ku dhahay oo kulmeena insha Allah adintii joogteen adi ee Sacuudi dhankee ka joogtaa Jidda daadii sheegin garaal naqba gabadhii wiilka Sacuudi Jidda isku noolaayeen marka waxay dhahday inaa kulno ayaa rabaa marka wiilka anoona arag ayaaba kaftankiisa iyo sheekadiisa iyo wixiisi ayaa dhahday saaid ay dhaxmartay waa jecel xad dhaaf ayaan u qaaday anoona arag wiilkana waa isnaqaanaa oo jaamacada asla dhignaa oo markuu leefiyo arko waqti ma siiyo markaas ay wuxuu dhahay inaas kulno ayaan rabaa okay markaas 3 sano ayaa ka soo wareegtay ugu yaraan ay dhahday markaa wada sheekaysanayna taleefanka oo markasta oo sheekadiisa xiiso iyo kalgacano ii hees baa la sheekaystaa
waxaa markaan kulnay inuu asiga aan arkay waxaan dhahay maxaa iigu sheegi weysay wuxuu dhahay ani waan ku jeclaay dhowr mar ayaan ku jeclaay waxaan marka inaan kula hadlo aan damcana waqti baan sii jirin saas ayaa igu kaliftay inaan waqtigan dheer kula soo qaato Facebook cusub ku samaysto saas waaye haddii aad raali ka tahay haddii aad raali ka adag waaye okay waayaan ku dhahay markii ugu horeysay marka wiilkii marka inuu asiga aan ogaaday waxay dhahday ani unbaa isku fikiray stress badan ka bacdi fikir hooyaday way la yaabtay gabadhi maxaa ku dhacay gabadhi maxay isku bedeshay aabay sidoo kale inay waxyaabahaas ma leegu aqoonin waxay dhahday marka sida aan wada markii dambe waxaan dhahday wiilkan waa bil-aadan kulli hadda waa jeclaatay ka qaabil jecelkiisa soo dhawaawna dheh maadaama aan leef aad ku jeclaynin oo luuq kuu soo galay jecel awgeed oo kuu qabo okay aan ku dhahay soo dhawaaw waxaa dhacday maalmaha ka mid inuu dhaho abaa inaa kulano ayaa rabaa xaafadeeda ayuu ku timaado waxaan dhahay waayahay markaa 3 bil ugu yaraan markay kasoo wareegatay waaye waxaan dhahay waayahay xaafadaada inaa ku kulan haddii aad jeclaysatay okay waa israacnay dhahday xaafadiisa ayaan tagnay wuxuu isiiyay dhahday wuxuu keenay koob sharaab aan isiiyay asina koob sharaab koobka sharaab markaa cabay ayaa waxay dhahday miir iigu dameysay markaas ka bacdi miirkeyga wuxuu rabo ayuu iga samaystay maxaa yeelay ninkan ujeedada oo iga lahaay waxay dhahday danta iga lahaay wixii ahayd inuu iga aarsado oo intaasoo sano uu soo qaatay danta iga lahaay wixii ahayd inuu wuxuu rabo iga samaysto waxay dhahday wuxuu rabo iga samaysto miir markaas ay igu dameysay waxay dhahday waan ka soo tagay jaamacadii heer waxaan gaaray oo dadka la kaftami heer waxaan gaaray aan aamusnaan igu soo gurfto oo murug stress baan wax kale aan dareemin waxay dhahday heer waxaan gaaray wixii isoo gaaray aan la murugoodo kaga sii daranay asiga maqalkiisi waa waaye ee dhahday ima soo waco taleefan kasta oo soo waco waxa u maleeyaa inuu asiga soo wacayo mid kasta oo soo wac waa fiiriyo inuu asiga unbuu ka soo hadlayo ayaa moodaa waxaa dhacay maalmaha ka mid anoo sideeda oo qof walba aan isdhahayo qof kasta la wadaagto goorme ama ku fahmi doontaa gabarnimadaada way baabaaday waxaa way baabaaday sharaftaada way baabaaday saasay tahay asiga ayaan ka sii fikirayaa dhahdo moo ku soo waco ayaan ugu sii fikirayaa waxaa dhacday inaan marka maalmaha ka mid oo isoo waco oo dhahayo waan guursan rabaa guur ayaan guursanayaa guur geesi ayaa isoo galay marka waxaan rabaa inaan iska cafiso aniga ayaab ay igu noqotay biritan inaan kulano ayaan rabaa ayuu igu dhahay marka waxaan dhahay ma kula kulmaayo haddii aad guurso rabto ilaaha kuu barakeeyo guurkaada aniga nolol iyo stress ayaa meeshaan la joogahay dhahday ilaa 12 ilaa ay hadda saacadaan la joogo waxay dhahday nolosheeda ma aqaan sidee tahay nin kasta oo la sheekaysto waxa u maleeyaa inuu idhahaayo eber ayaa tahay stress unbaa dareemaya iyo walwal iyo walbahaar waxaan idinka codsanayaa inay iisoo duceysaan ducaa in waa idinka dalbanaya iisoo duceeya ayay dhahday waxay dhahday waxaan idinka dalbanaya inay iisoo duceysaan qalbigeyga ma fiicno mar waxaan isdhahaa waxyaabo badan ayaan ku fikiraa maxaa yeelay ninkii aan jeclayna waa iga tagay maantana qof waxaan la hor istaago ma haasto oo waxaan dareemaa waxa idinka aad dareemi kareenin waxaa idinka codsanaya inay iisoo duceysaan duco ayaa idinka dalbanaya wax kale idinka dalbanaya ma jirto inuu ilaahay qalbigeyga ii fiyoobeeyo waxay dhahday waxaa idinka dalbanaya duco unbaa idinka dalbanaya inay iisoo duceysaan asxaabteeda fasha jannakeeda ku xiran ducaa idinka dalbanaa iyo inuu ilaahay wax kheyr qabo oo ila fahmo marka asxaabteeda usoo duceeya abaayadan oo intaas waxeeda qarsanaysay midda kale waxaa idinka talisiin mala wadaaga hooyada iyo aabahay midda kale waxaa idin mala wadaaga hooyada iyo aabahay mala sheer gareeyaa mas wixii sidaas ayaa usii qarsadaa sida aan yeelan garlaa inaan la sheer gareeyo mar badan waa isku day haddana maxaa hooyada iyo aabahay wixii aaminsan yihiin qof degan qalbi fiican meelna aana aadin maalinta asiga la kulmaayo jaamacad ayaa u gambiye ayaa dhahday marka sidee ayaan yeeli doonaa talo waa tii alle idinkana talo ayaa idinka sugaa ila soo taliya hadda dhowr mar waxaan isku dayay sun ma cabtaa haddana waxaan dhahaa
sunha cabine iska sug nin kastoo ila sheekaystana farxadeedii hore ma siin karaayo waa stress murug ayaan dareemayaa marka asxaabteeda waxaan idinkaga talinayaa inaad usoo duceysaa baayadan gabar kastoo Soomaaliyeed oo islaan ah inay ku tusaale qaadato nin kasta oo ku balamiyo amba wax kuu dhaho inaad ka yeelin aad ka aqbalin insha Allah wabillahi tawfiiq asxaabteeda waan salaamayaa.